calaamadii gaalada crosski waay Sweden marka imaanay dhakhtar been inta liigay waxa la ilkaha laga hagaajinaa wax ka jira ma lahan waxaana liiga xiray ma ogeyn maanta ogaadi السلام عليكم قلب وناكسن فيد وناكسن لما أصحابت ميل والبو أدونك جوجتين إسونا قدام بوحي سالي وانيقو ولالكين محمد بسكت هلكا نقل سوعتان waa channel keena فيديوغا لايك سار aad aad u mahadsantihiin waa codsi please like tasaar like waxay naga caawinaysaa channelka ciladan bishaan haysato insha Allah ila 27ka inay ka baxdo waxay kaloo naga caawinaysaa like muuqaalka inuu meel dheer gaaro waa mahadsantahay calaamadii shaydaanka waa calaamadii gaalada crosski waay Sweden marka imaanay dhakhtar been inta liigay waxa la ilkaha laga hagaajinaa wax ka jira ma lahan waxaana liiga xiray muuqaalka waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho wali waxaanu ka hadlayna xalay muuqaalan ka sameeyay waa ka hadlay Maxamed Daawud iyo wiilkiisa iyo habaarka uu la daba taagan yahay iyo wiilka Maxamed Daawud ugu dambeyn aabihiisa raali gareeyay oo yiri aabo raali ahaa hooyadii waxaan oo dhib ii geysatay hooyadii ay sixirtay waa been baan ka sheegnay waxa wixii qalad ah wiilkii waxaa soo galay أمودي نورا لأليو وحقف كس نوع كلا فوالي كده أو إنه إزدلا حتى كده أنت أصبح بكدرب وآدم وقلنا حي ويلك محمد داود وأفكي سساس وكلا قاضي مقالك بلوغن واتكو أركتين لبدا إليك الدنبي جوس قداشيس جوس عقليات ماشي سملينو لبدا جوس عقليات كوحلو دي جيسيدو أساق الشيء علامة دي كريشتانك oo crosska iyo calaamad sheedaanki oo dhan hooyadeen ugu dhajisay buu yiri maalintii ugu horeysay oo Sweden la keenay Mareykanka laga keenay waa ogtiin isbitaal bay geysay way ugu dhajisay waxa lagu talagalay inaan isku dilo lagu talagalay inaan nolosheeda ka uga siiyo dentes ma aha waxa hoos ku soo qoroodan waa kuwaas ay kuwaay lixinta waa sixir waa calaamadii sheedaanka waa calaamadii كروسكي وير قالده إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا أوجادي قولي حتى واحد لو كان وعرتين علامة شيطان كواي علامة قالده كروسكي واي Sweden marka imaanay dhakhtar been inta liigay waxa la ilkaha laga hagaajinaa wax ka jira ma lahan waxaana liiga xiray ma ogeyn maanta ogaadi lafa iyo tin iyo wax dab amal shidan iyo balaayo dhan u sheegay horta reerka meel baa laga haystaa meeshay tahan ogeyn ilaahay waxaan ka baryayaa gabadhii dhimatay aabi Maxamed Daawud iska xanuunsado waxa aragtay oo silac iyo rafaad ilaahay hadda gurigu deganaa xataa laga saaray wiilkii hadda sidan ay ku timid reerkan ilaahay horta waxaan ka baryayaa reerkan inuu ilaahay dhaxdooda maslaxad dhigo haday sixir tahay haday caasinimo oo firka haday tahay awooga aabayaasha ay caadi soo ahayn haday aabaa caasi ku ahayd Maxamed Daawud oo kale aabiisa duu dib ku hayay asna caruurtiisa dhibayso oo laga jaray haday saas ahayd iyo haday waxaan sixir tahay oo Maxamed Daawud iyo caruurtiisa wiilka sidoo sheegay xaaskiisa ay sixir dhex dhigtay oo ilaaha noo maqan ilaaha aabo maqan aniska dhaaf إله أبو مكان وحنا قبل كري وقالدي عبوديس موجود درتي أبي بين إنك شيء قبل حتى مرقاتي أو فرتوا أو جد المحكمة ويل كان أو شيء ويرو إدلي وبلاي ودن للشيء بس أوركي شرعي لقال الله بتي محمد أو السلعة سوكجرو عروت أنا يجلس هذه هوية السحر كل حكى لجيسينا وهذا حقي وصاد العينه waxaan leeyahay reerkan dadkii u dhow oo day waxaan way run yihiin wax gabadha xataa sidaan ku ahayd inta iska xanuunsaneed waxoogaa ku jirtay waa isdishay markii dambe gabadh yaroo 20 jir oo isdishay 22 jir markaas waa dareemi kartiin xanuunka iyo dhibka iyo waxay martay sixir iyo wuxuu yahay ilaahay baa og ayada ma aysan soo hadlin oo social media ma soo galin walaalayaal dadka familkan u dhow wiilka iyo hooyadii dadka u dhow Sweden joogo war Qur'aan hal la saaro oo gabadha hala dhaho gabadhii hore isdishay wiilkan aabiis kaligiisu ka qabay la heshiisiyo Qur'aan hala saaro Maxamed Daawud xataa in la that's what I'm worried about wala shay arabina soo hadasho wala lagu soo horjeestay waxa la weydiin tahay waxa la weysdishay
qoraxda inta iska coojisaa lahay wax ka jira ma lahan wax ka jira ma lahan maskaxdeeda way joogtay jirkeeda wuu maqnaa baqaya wax loo dhiibay sixirka wuu jiraa nabi maxamed la sixray asagana hadduu sixran yahay dad wadaadii waxa uu tagay quraan hala saaro war wiilkan iyo aabiishiisi heshiisii hooyoy haddaad aabbaha kala tagtaan canugan iyo aabihiis canuga haddaa hub ahaan u adeegsatid wallaahi oo bilaahi oo tallahi markuu weynaado waa ka shalaynay ama aabihiis u raadsanayaa oo adigu adduunka kuu nacaya aad aabihiis ka jaray ama sidaan oo kale wuu waalanayaa asaa isdilaya ama derbi iska tuuraya ama sidaan oo kale naqanayo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ninkaa kala tagteen caruurtiisa haddaad u diidan tahayo hub ahaan u adeegsanaysid warabul ciza oo hin iyo ciil adaa u dhiman doon adaa u dambayn doon sabab canug aabihiis aabyaal wanaagsanaa jira aabyaal xun oo dhib badan oo caruurta ka warhaynin oo biilkooda wixii tabartooda aan dhiibin oo caruurta silciyo oo hooyadii haddii kala tagaan oo ay furaan caruurta furo way jiraan hooyooyin xunna way jiraan laakiin waxaa jiro aabyaal wanaagsan oo caruurtooda jecel inay xiriiriyaan oo haddii la kala tagay caruurtooda jecel inay biilaan oo caruurtooda jecel inay waqti la qaataan oo caruurtooda canugaan waqti yar u haystaa waa intuu yar yahay ilaa 8 sano 9 sano uu ka gaaro xataa 10 iska dhe intaas ka badan hadduu noloshaada kaa waayo kuma baahno cuqdada galayso wuxuu leeyahay aabbihii shalay saan kuu gal hadhow beerta geli aabbiyo canugii jecel oo daba socdo oo daba ordaya oo lacagtii dhiibaya oo rabo haddaad ka jirtidood asaga aad hub ahaan u adeegsatid beri canugaas hadduu weynaado wuu ogaana aabihiis inuu xuya in kale wuu aadaa kow adigana wuxuu naqanaa hooyada adduunka ugu xun oo ugu neceb yaa naqanay xataa hadalkaaga ma dhageysanayo kow ama sidaan oo kale waa waalanaa isaga dhan saasuu ku qora balood iyo balaayo iyo buufin qashin intuu soo cabo oo meeshan kuu soo fadhiisanaa aabbo adiga haddaa caruurta haysata hooyada ul ha uga dhigin maskaxdeeda way joogtay jirkeeda wuu maqnaa wax hadda liigu sameyn rabo waay wax hadda liigu sameyn rabo waay waa waashi ha of course marka caawinood baahanta waa waalatay dagaalka labadiina markaad kala tagtaan yaysan caruurta saamaynin yaysan caruurta cuqdad iyo ciil aysan u dhimanin ilan hooyada nin canuga aabbihiisa maxay uga jari kartaa inay aabbaha caayso idhahdo aabbaha qof xun u ahaa aabbaha kuma jeclo aabbaha kuma soo raadinayo balaayo iyo cuqdad iyo balaayo inaad ku rartid oo canugii cuqdad aad gelisid aabihiisi aad ugu dirtid ama sida cuqdad gelisid hooyihiisa aad ugu dirtid canug walba haddaan ku leeyahay canug walba aabihiis hadduu kalaab galayo hooyadiisa kalaab ay ka niikisa iyadana canug walba uu jecel yahay aabihiis iyo hooyadiis markuu yar yahay inay garab taagan yihiin wixii ayaga ka dhex dhaco canuga waxaas ma qoro iskuulka markii la qalin jibinayo iskuulka markii caruurta ficiisa isugu imaanayaan iskuulka markii la aadayo waa lagu sheekaystaa caruurta ficiisa iskuulka ileen qurbahana la joogay gabar haday tahayna da'deeday la dhigan wiil hadduu yahay da'diisu la dhigana waxaa la isweydiinaa aniga aabbahay wuxuu ii geeyey meesha lagu ciyaaro aniga hooyaday waxay ii karisay cunto saana dhalashadayda hooyaday hadiyada ii keentay dhalashadayda aabbahay waxaanu ii keenay kana aabbihi waa ku dirto keligaa ahaay cuqdad baa galaysa wallahi bilaa been ku sheegmay runta ku sheegaya canugaaga cuqdad gelinoosaa canugtaada cuqdad gelinoosaa kumanaan aabbaa jiro boqorro ah wanaagsan xaaska hadday kala tagaan yaqaano qadar rabbi inay wixii dhammaadeen kumanaan hooyaa jiro wanaagsan oo haddii la kala tagay yaqaano waxa ayaga dhexdooda ahaa inay dhammaadeen laakiin caruurtan maxaa u fiican oo inaad ku fikirtid canug waxaa u fiican hadday hooyada haysa aabbaha waa inuu la xiriiraa la sheekaysta u booqdaayo xataa hadduu aabba xun yahay aad dhahdid aabbaha qof wanaagsan waaye beri markuu weynaada calafaa dhammaaday maogii qof xun ma ahayn hooyadaa qof xun ma ahano waqtigaa dhammaaday ma ogii hooyadaa naag ka wanaagsan ma jirta leh haddaa ku leh wallaahi billahi oo tale cuqdad maalintaad gelis waa ka maxamed daawud hadda shalay asaa xanuunsanaa baasboorkii lagala laabtay kor ku dhacay xanuun kale ku dhacay banaan la dejiyey gaari mar dhex seexanay soomaali u kacday lacaga loo ururi ilaa ay hadda uusan shaqaysan karin oo qofka sharci lahayn guri uusan joogin intaasoo dhanna waxaa u sababay oo u keenay wiilkiisa iyo gabadhiisa oo asaga qurbaha keenay hadduusan asaga keeni lahayn maraykan ma aysan dacweeyeen sharciga lagalama laabteen way qoran waa dhacayaan maanta waa aaminsanay maxamed daawud inuu ka shalaynayo maxuu u keenay maraykanka marka hooyada canugan dhashay gabadhii waa dhimatay
kuwaana qaado wiilkaana idinka dhexay aabbahiisii asaga heshiisii adii asaga waaba kala tagtay naagta rabtay raacsan nig dad naarsistigaa jira mugti oo caruurta ma jecla laakiin aday hub ahaan ku adeegsanay qalbaday ku jawaynayaan aabbayaasha caruurta lagu dhibo lagu silciina waa kuwa caruurta jecel kuwa baxaaba jiraba war canugaaga ka warhay soo raadi xataa la soo xiriir telefoon si hooyo in boqor ay dhaleen oo aabi uu soo raadinay hooyo canugeeda ninka ku dhibaysa daarat ama ninka ay jeceshahay oo weli ama aabaha canuga jecel intaas way bis aabaha canuga jecel oo way ku cadaadinayeen ama ninkay weli jeceshahay oo ayadoo jecel ka tagay aaba daartay canugi hooyadii kula dhigeen daba socdo ordaysaan ama canuga hooyadii u diidayana hooyadu jecel yahay ama hooyada canuga jecel maxamed daawud iyo waxaan leeyahay familkiisa ilaahay maslaxa idin dhigo quraanna isa saara wiilkan waxa ilkaa laga geliya deeb yihiin wax sheedaan ama sixir iyo wax guriga loo keenay walaalo meesha waa of course marka caawinad baahanta waa la tiri abtii waa dheeryahay waxaan ka codsanaa dadka Soomaaliyeed abta arrin yar baa jirto arrimo khalalaasa hadda wallaahi dumarka aqliga badanow aniga meeshaan xabad uma imaan in wax la taray uma imaanin in game iyo ciyaar uma imaanin nin يعني halkan ideeri inuu ilmo igu beelo uma imaan laakiin mid baan idin sheegaya wallahi oo billahi oo tallaah hadaa guursato iyo hadii ilmo laga dhalo iyo haduu walaalka ku daba socdo iyo haduu hooyada ku daba socdo hadii eedada ku daba socotay in adeerta hadii ku daba socdo dhageyso naftaada adduunyada maalinta loo keenaa qasaartay wax u qabso wax qabso wala meesha waa dhiiqo wax qabso wala wax wallahi hadalkayga fiirin naag iga karti badan ana isla yaab sometimes ana isla yaab ana isbitaal ka soo baxay waligii shaqadeeda ma moogaanin waligii shaqadeeda ma moogaanin si aan cidna u toogsanani haddana dadkan wax itaray ayaa fiiri qof waxba yahay ah oo aan waligii shaqaysanin oo guriga hooyadiis ku nool oo weligiis aan xitaa ranti gelin guri aanan gelin ayaa halkan waxaa lagaaga dhigaa waxay yahay because you know adaa dumare inaan hadlo waxaa u qaadanin laakiin waxaa u qaadataan waxaa idin soo gudbinaya waxaa idin noqdaan waxaan ku soo gudbinaa waxa idin noqdo waxa laga yaabaa berina codkeedan ba aadan maqlinba wallahi naag markaa tahay haddii lagu biilo naag nool baa tahay haddaad nin ka soo tagto shalay ninkaa ka soo tagtay ninka ku dayrinayo walaalkaa adiga ayaa ku dayrinaya ninka shalay ku gatay fiiri hadaa dhahdid maanta fiiriya fotaa tax ka qaadanaysaa walaalkaa wuu ku difirayaa laakiin walaalkaa qadada uu cunayo walaashiis fotadeeda caaw in la habeenayo ma qaadanayo de waa reality waaye iyo qarqaraac igu dhigaya fadlan afar qof oo nin ah oo qurbo ka nool markaa aragto fiiri afar nin oo qurbo ku nool markaa aragto saddex nin oo kamid walaashiisa soo dhoofisay ama gabar baa soo dhoofisay nin wax taro Soomaali kuma jiro aniga record baan rabaa inaan halkan jabiyaba أنا أبيني وحيستوها ننقريلي لقن أنا أفتقين وكما سو كورين أذير كين وكما سو كورين حولي ولي أبيه بيسو كوري
hooyaday aabahay baa isuu koriyay hadda idin sheegayaane haddana fiiri familkayga oo gaajeysneen qoftii ugu horreysa oo la gataa ahaa hadday dumar waxay yihiin oo xoolo dad ay ku filan yihiin xoolahay haystaan intay fiiriyaan ayaa dooqayga ani lii raadin lahaa liima raadinin fiiri xoolahay haystaan iyo xoolaha aan ninka laiga gatay uu haysto waxaaba ooga baraka badnaataba ninka laiga gatay aniga xoolo u haysto qoraan iska dhaafniyo waxaa tahay malaha markaa naagta beenha isku sheeginayo xabadna tii soomaalina diina idiin sheegayaa iyo waxaan karna meeshaan fiiri haddaan isku kiin sheego ninka aniga ninnimo aan kusoo dhoofiyo isku hooyo isku aabba aana waa sheeq anaana ku keenay inuu asaga ii qabo safaaraduu tegay asagoo kastuumadii ka sheekeynayo walaashiisna waa ahaa isku hooyo isku aabba aane eedda hadday soomaali diin ka shaqeynayso labada annaga isku hooyo isku aabba aana oo labadeenna ayaa diin ka dhex shaqeyn lahayd hadday diin wax tahay oo meeshan dad ay kala reebayso brother asaab iigu xanaaqay maalinta ingiriis imaaday maxaad ii dhoofin laaday iska ilow saaxiib waxaan diinyan lagugu soo gaban markaa dumarta diinta waa kawaan uu nin ka kaluumeysto si adi lagugu dabro diin islaama nin soomaaliyeed ma haysto sheekh soomaaliyeed oo halkaan intuu soo fariisto gabdhaha ooga sheekeeyo dhibaatooyinka adduunyada ka haysta ee janno ugu galaan maarkiis halkaana lagu soo wada fariisanayaa sheekh iyo shariifbo waxaa lagaaga sheekeynaya ninka futadiisa in aad ku gasho jannada do not fucking lie sheekhyadaan dhawacdinaya oo dhan kan ana ila dhashe ee ani aan ku keenay aniga ilaahu ma biri dhusamareeb liiga ridaanay I don't give a fuck kan ani aan ku keenay inuu ninkayga ahaa fiiri ee dadka diinta u sheegay oo kala idin wacdiyo runta idin sheegaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi reality-ga qaata dumaro tagaayo okay kulay diinta cidda lagu dhaqo oo musuq maasuq loo keeno idab darro loo keeno naga dambe la leeyahay waa dumar أنا هذا إذن شيء جايبه مقعي سوس دحلا إذن شيء أنا وحال ده أنا عبد القليف شيخ عبد الرحمن من كان أنا عبد الناصر عبد القليف شيخ عبد الرحمن الله هذا أنا نود حيس على الصلاة أنا أستغل نود حيسه باسبور إنجليز قوة استنا أنا كاني sheekh aan iska dhigaya salaadaha kama tagto naagaha la wacdiya nin looma tago ana ingiriis keenay asaga oo ku keenay inuu ninkeyga yahay hadday diin qof bini aadana ay qabanayso asagay qaban lahayd labo intuu jaamacadda ka bernay wax bernay hooyaday buu la noolaa hooyadayna ingiriis ayaa ceer siinaysay oo ka bixinaysa guriga uu ku noolaa weligiis runtii muu bixinin dadka diin idiin sheegaya waa noocan oo kale gaalada ha la qayaano islaamka ha loo gargaaro walaashay ha i dhahdo ana i qabtaa anaa qabo gaalada ha loo sheego hadhowna islaamnimada annaga ha nagu soo jeedsado adeer waa diiday وديده reality وا عاموس هري والو دوبا نو
boqolaal qof oo anoo kalaa ku nool dhibaatooyinkan anaa ku nool gabdho badan baa ku nool waana la sheegayaa waxyaabaha aan digayana waxaa waaye wax dumar ay wax ka galeen ma aha ninka walaalka ay ama ku qabo diin buu kugu soo gabanayaa gaalaad been u sheegaysaa berri toolana asiga ayaa diinta kugula soo noqonaya ogow reality waay diinta markaan kuu dacwoonaya may jirin miya maanta may jirta hadda may bilaabatay diinta ma hadday bilaabatay soomaali inta isku keentay walaal isku hooyo isku aabba inay isqabeen maa cadadnaa walaa xisaaban labo afka taago oo halkaan oo kale ah oo social media dad ku gaalaya idiin sheegaya mid cumar bajiye oo bixiyo oo shaansho iyo arka iyo mid kale oo xabad diinta aan ka aqoonin oo la dhaho muxuu ahaa magaciisaniyo deeq oo autistic aba wax ka sii yihiinba gabaygiisaba nina 10 caruur oo ingiriis ku dhalay iskuma qorna gaalaa u biisho naagtuu qabo single mother fiiri midna fiiriya wuxuu ka shaqeeyaa uber qaniis iyo qaniisad iyo wecel dhalay ayuu isku geeyaa inay iswasaan markuu halkan ku imaadan wuxuu ku sheegayaa diinta runtaa la isku sheego baraad runtaa la isku sheego runtaa la isku sheego meeshaan ee dhalaa xasuustaa haddaan runta kuu sheegana reality aan kaala hadlayaa dhiiqa kasto waxay ka bilaabataa guriga a kasoo farcantay guri kale ha ka raadinin cid kale ha ka raadin saaxiibada ha ka raadin adeerkaa ha ka raadin abtigaa ha ka raadin waxaa ka raadisaa guriga adiga ah ku soo karta ka dhex raadi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi 355 dhiiqo ay ka dhexhelay guriga adiga ku soo kortay been ha isku sheegin wax yar waa beenta wax yar waa in yar oo la tiri waa beenta laakiin weli adiga muraayadda isku fiirismi istiri waayo wax lagugu shubtay mata horta mate ma ihi okay dadka waxaan iga sheegay okay aniga qof ka fiican ma ahay qof ka sii xun ma ahay ma istaagi karaa ma sheegi karaa aniga waxaan la igu shubtay inaan qaadan karin oo aan ka weynahay ahankayga waxaan la igu shubtay inaan noqon karin ana ma sheegi karaa الشيء محو شيء واحد قد بجعلها تجي دفك الدين الشيء أديكو عبد الناصر عبد الخليف اللي قلنا نحن عبد الخليف اللي إنه باصبور كأوت قربان كإمادة دتك الشيء يصير أفريقيا أنت عتكته فيريا أفريقيا أنت عتكته في أي دتك وحو شيء رتا قد بجعلنا وعدي سؤال دتك الدين أو شيء يصير أنا وحنكوك أنا عادي قبط ولا dadka ma u sheegto baasaboorka watin aan lahaa u sheegto dadka number 1 u sheeg halka ka bilow kow runta waxay ka bilaabanay baasaboorka aad soo qaadatay inaad aad lahayn walaasha inaad qabtay inay ku keentay ingiriis oo u sheeg u sheeg orod gey horta weli ma sheegto hooyadaa amaani hooyaday baasaboorka ay ku imaatay inay bug ahayd oo naag Djiboutiyaana oo weliba xildhibaan uu qabo sawirkeeda loogu xareeyay weli ma sheegto u sheeg walaal dadku u sheeg haddaa faanayso gurigaaga ka bilow gurigaaga number 1 gurigaaga ka bilow
أنا قف عن حمنا يوكر من جوري كان كبلاويا قف كان حمنا أو مش أنا وفق لي ملهاني جوري جاي كبلو كو جوري جاي كبلو وشيء حرامتي يا حراش هالك على سعر قد بجمعه أنا أفريكان ومدو أو صدن كيلة أو مدح وكاوي أيا waxay tagaysaa safka hore dadka ma u sheegto walaasha adiga ka yar inay adiga ku qabto inay ingiriis kugu sheegto waliba u sheegto dadku u sheeg imaamkana ka dhaadhici si masaajidkaas daftarkiisa lagaaga xaaraanteeyo walaal adi iska bilow kow adi iska bilow dhiiqo to dhiiqo walaal dhiiqo to dhiiqo طيب سوري واك سلام باي dhiiqo to dhiiqo miya khaliifa markay iwaaniso aada u necbaanay miya khaliifa markay iwaaniso aada u necbe maxaa yeelay miya khaliifa wax kasta oo u sheegto maanta iyo lacag kasta oo aad siiso dhilanimo kama maaranto adna dhilay baa tahay ani aan keenay diin ha igala hadlin diin ani wallaahi inaadan iiga noqonayn oo bilaahi oo tallaahi diinta islaamka kawaan adig kuu furnayd igala noqonayn ani weliba fiiri ilaa ay hadirtaan wadaad inaad isku sheegto weliba shaqadaada meeshaan keenaani caddaan inaad dhacdo kaararka aad dhacdo halkaan aad dhacdo wax aad belanbeladgalayso hooyadaa inaad u qorto inay xanuunsan tahay si gurigaas lagaaga bixiyo ranti la-aan uu yihi wax badanaa soo socdo ana waxba hay soo wicin diin ka fogow unless aa halkan ku imaato tuug dhalaanahay haddaa halkan ku imaato ani farahan kaa qaadaa ma imaani weys habeen iyo maalin halkaana iska daawanay habeen iyo maalin halkaana iska daawanay ani waxaaba iigu darneedbo walaalkaa ma ku qabaa marka interview la iga qaado kastuuma noocuu xirtaa kastuumihiis maxaa i barna calaa aabihii ku yaala maxaa i bari kastuumihiis iyo waxa lagu keenaya interviewga aada u weyn inaa gabataa kuu ron brother wallaahi inaa gabataa kuu ron oo bilaahi oo tallaahi you think ani mental inaa iga degi kartid intaa ii dhintay oo hooyo aad ku soo gabataa kuugu filan wax kasta oo waxba yahay waaliduu kaa soo maraa ogowna ilmo waalid ku tiirsan haddaa aragto waa qof aan isku filleen wallaahi oo bilaahi oo tallaahi iskuma tirsana qof waalid la degan asagoo isku fil oo qof weyn haddaa aragto waa waxba yahay haddaa isku filanta meelaa deg lahayd ama deena lagu yeesho ama meel kale ka soo jeed adaa wax noqon lahaa dadka u sheegay nin lacag lahaa dhalay okay nin lacag lahaa ku dhalay haa oo dabaqaa ku dhalatay haa okay no problem waa kaa qaatay nin wax weyn ahaa ku dhalay okay oo hadda intee joogtaa engaree oo maxaa ku joogtaa walaashaya ninaa laha igu keentay oo walaashaa ma qabta istakfaralla
هذا تقول لك قرق هاي هاي لا يا بحيو تعال بحس هاي لا محاوقرت إيه حنون سنت هاي لا محنون سنت مايا الله لقاها يا الرجل لماذا على نو شيء مرك نافق يو أنا صوب النيات